munaasabad la ka dhawaayay malaga guud ee beesha jiron mudane Xaflad aadan xasan oo ka magadheri doyow iyo waliba uu ka hayay koyo ku qayb galan xildhibaano ku dareero koonfur galbeed ee Soomaaliya malaqa iyo nabadoon ee koonfurta Soomaaliya iyo ha ku jeedaan saasoo kale ururada bulshada qaybo shil gadisan iyo goobrog iyo ku hayaan munaasabadyan koranji waliba iyo ku hadleen nabadoon iyo malaqin iyo siyaabooyin shil gadisan iyo ku hadleen xaaladda guud ee beesha jiron gaar ahaan malaqa guud ee beesha jiron jiron waliba dhagan shaqeyntii oo laga doorada suuqyada kale maxaa labaadii kowti madinada oo naasari waliba bilaawayna taarikhan bilitodoba labada kun waliba bilaawayna anti malaad doorada malagaas oo beesha jiron malaha loo ka saarfay tomukisiyad malaga la magaawi lakas ari fadeen erna dhamaato liiska ka daray annatay yaray waan wax idari sare qaado madil idari gabadha dadka waa soo hubin afar qof ismire afartii madees tara malaad doorow malaad استاذ آدم حسن قولي كتب إسحاق دولو يلا حكومي أو لواتي كوفي أو كلام أو منا نجاسة ثاره. ملاك إسحاق حسن آدم دولو يجي جرني لان أبويها إدبيت جر يعني هاي ونوعنا أنا بري هالشقة يعني لان تارك له هاي لان نبت جرا هاي وجر ولا نسكسر جر goboladu markii dhulkuni meel kaliya heedoon iska saadan ama sinabadina ku weydiiyay meelahay salaam baacdi way si sheegahayne inuu una beel isku duubno ana malaqa si sharaf leh oo dheexan haka dhawaayana waana kamid ay sanay inuu una dooran intaas ma ilaahay si sheegahay malaqa oo sharaf leh oo haka dooradii degmada waajib ونون ولي قرب كسيها إنه ون دارنا أصلي كل أو ما إلى رأي واجد عن دارتي يا ونون ما إلى رأي وسكت دوا دريرنا حفلة أو أي بيشة جيرون دق قول كباي خاصة نقبل بينه ملا قولي جود أو يجا أي صوت دورته تاريخ التحنها له وهذا مركي واكشة كينا عنده وتوحى معناها أولاً أن بيش درو وبعد علنا لين متعلمة وأنا جوجين معنا دلك الجديد أقويانا بالفصولة دلك كمقل قبيلتي أصيغ الست موافقة سوق الراعي من نماء سوق الراعي شعبية وبرشلة خيبية كانوا صوت دورتين تاسي وحان ما دائما أبدا إلهي موافقات هاي دائما malaaq Xaflad aadan xasan malaaq doyow waliba uu saciya malaga guud ee beesha jiron walina sidinaga kiishay ku hadlay ee amaanada indibati beesha jiron oo guudba uu soo sheegay in amaanadaasay sida ilaahay kaloogi saan ku baha doona ilaahay subhanahu wa ta'ala walana inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilna wa ashfaqna minha وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ريونغن ولا أنا أمانة دولي بالبيدي لكن وقت كان تسأل دوه يقول الاستقلال يعني قبل الاستقلال آخر هذا السجود. مركا أنا نسيت أنا مركا إن الاستقلال عليه أمانة ولكن نصير راعي مركا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا هو السؤال في حكم أي بس بدنا يسوع. عدالة إلهي وهذا الملك munaasabadan la ka dhawaayay malaqa guud ee beesha jiron dhawaanyahay tito caleemasaar shiyada ku dhid degmada weejid ee gobolka Boqol aana sayo ku qayb galan xildhibaano siyaasiyiin iyo nasaasoo kale ururada bulshada ee Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada koonfurta Soomaaliya bishaar miyo muqtar koonfur galbeed TV baydhabo